labaatanka waxa aynu dowladda Sanaag iyo kulul aynu joognaa xarun caafimaad oo maanta loo dhagax dhigi doono dhagax dhiga xarunta caafimaad waxa u gartay degmadoodii laba musharax oo u tartamaya doorashooyinka golaha deegaanka iyo golaha wakiilada ee gobolka Saaxil waxa hore loo oran jiray horta maanta labada musharax dhaqankii hore ahaa wax naqshada way bedeleen maanta iyagoon aan la dooran reerku wuxuu dhiiban tolku wuxuu dhiiban ayay maanta garteen in degmadii ayagu horta dadkii ay wax gashadaan ka bacdina ay dadku waa abaal gudaan codku ugu abaal gudaan marka waynu ducaynaynaa labada xildhibaan musharax Cabdiraxmaan Maxamuud Yaasiin oo u sharaxan jagada golaha wakiilada ee gobolka Saaxil iyo Axmed Carab Muuse Bulaale oo u sharaxan golaha deegaanka degmada Berbera ugu horeyn hadda waxaan ku soo dhaweyn doonaa hadalkayga Chief Caaqil Aadan Ibrahim Cabdi oo kelmado yar oo kooban inaga hor doona بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم marka hore horta ilaahay baa mahadle waxa kale inuu mahadnaqaynaa tuulahan Sanaag bulshadiina ku nool ee sida qiimaha loo soo dhaweysayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maadaama kadib halka waxaynu nimid labadan musharax waxay hogaaminayeen oo maanta ayagoo hore u qabsay ay maanta dhagax dhigayaan xanaano lagu daweeyo hooyada iyo dhallaanka oo ay dhagax dhigayaan maanta birna waa dhisaya dhagax dhigi maayaane marka maanta la calaamado birna waa la dhisaya dhagax dhig maaha meelaantoo dhagax la dhigada laga tagaa way jireen laakiin ayagu tii maaha oo dowladdii caasamarka wax dhagax dhigada aan soo noqonin kuwani waa dadkii dalka lahaa waxayay looga baahan yihin kol hadday dadkii ay saa u dareynayaan inaynu darayno oynu codka siino oynu soo saarno markay soo baxaanna dee halkaa ay maanta ka bilaabeen horun bay uga sii soconayaan albaabada ay noo garaacayaan albaabada iyay noo garaacayaan waxaan leeyahay maalinta ay gaadho cod bixinta qof waliba oo codkiisa ku caawiya labada musharax ee waxqabadkoodii horena aynu aragnay maantana tuulahaasay oo ka tirsan degmada Bullaxaar ay dhagax dhigayaan xanaanadii ugu horeysay iyo meelo kaleba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وكما سيهاي شيف عاقل آدم إبراهيم عبدي وحن يمكن أن يريد دونا عاقل عبدي أحمد بصاص بسم الله الرحمن الرحيم كترسان قبل كساحل عبد الرحمن محمود ياسين oo sharaxan golaha wakiilada iyo Axmed Carab Muuse Bulaale oo sharaxan golaha deegaanka labadaan nin waa labadii nin ee beeshu ay soo xulatay kuna soo xulatay wax qabadka ay hore ayagoon xilba u haynin ay u dareynayeen bulshadooda ay ka soo jeedaan maantana ayagoo halkii ka sii wada wax qabadkii waa taa maanta la dhagax dhigayo rug caafimaad oo beesha Sanaag ya ilaahay baa mahadle labadaa inana waxaynu baahannahay haddii la yidhaa in waxaa noo raacday intaa xilliga waqtiga ay ugu dhow yihiin garbada bay soo gelaysaa ya waa waqti cibaado waxaynu sii ballamaynaa xilliga doorashada inaynaan loo kala harin guddiga dhishaha isgaar wassalaamu calaykum وكما سيء عاقل عبد أحمد waxaan u yeeri doonaa odayaasha iyo waxgaradka tuulada Sanaag iyo kulul oo aynu kelmadahooda ayagana halkan siin doonaa waxaan u yeerayaa odaygii tuulada Sanaag iyo kulul Xasan Xabaajan.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan ilaaha inoo nabadka baa inoo mahadnaqaya marka xigta waxaan u mahadnaqayaa xildhibaanadan Masar Abdi Raxmaan Yaasiin Gille marka xigta waxaan u mahadnaqayaa Axmed Carab Muuse Bullaale marka xigta waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha shacabka ka soo qayb galay sida weyn ee u soo dhaweeyay u soo saaciday baan u mahadnaqayaa marka xigta waxaan u mahadnaqayaa ogaasho iyo dhammaan haweeniye rag wixii almaani taagan goobta marka xigta waxa weeye sida kale waxa weeyaan hawshan hore looga soo almaani warramay waxay almaani qabadkan iyo hawshan maanta la isugu yimid waxa weeyaan meeshan Salibi kulul baa la yiraahdaa Salibi kulul la yiraahdaa waxa weeyaan qofka ku xanuunsan baa ilmaha ku xanuunsada waxa weeyaan intaasoo kiiloomitir bulxaar 30 kiiloomitir bay noo jirtaa waxa weeyaan marka qofka halka ku xanuunsada halkaas baa laga arari jiray ilaahay horta waxa lagu mahadinayaa almaani baadama maanta halkan goobtii leeyli intaasoo kiiloomitir qofka laga arari jiray leeylaha laga sameeyo waxaan leeyahay ilaahay waxa loogu mahadnaqaa iyagana waxa weeye kuwa alla u soo dhiibana waa loogu mahadcelinay waa soo dhaweynay waxa weeyaan intaaba ka bacdi waxa weeye way jirtay golaal badan oo dad badan oo ilaahay waxbaan qabanaynaa intay waxaan leeyahay naga taga tiyo kala tani maaha waxa weeyaan waana la dhigayaa waana la dhisayaa waxa weeyaan waana mustamac waxa weeyaan wax doorashada amani hal lagu saaciday codka oo hal lagu saaciday waxa weeyaan doorashada waxa weeyaan kuwa saabsan waa baableeshi weey cod almaani waxa weeyaan wax codkeen cod ku saabsan waxa weeyaan qofka de lacag laga siin maayo codka wanika waxa soo adduun almaani ku aaminay almaani maatidaadii iyo dhalakaaga waxaan ku qabto caafimaadka halkan kugu keeno codku de lacag kuma jooga de codka adiguna inaad ku caawisaa waa muhiim wariya wax kale sida inaan codka ku caawino السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانوا كسر وين دونا قضياشي يوحجرت كي تقولوا سلج يكلون أحمد داشنا. بسم الله. وأنا سؤال وين هذا نايت ببلش كده تقولوا سلج يكلون له هذا وقتي كانوا يبي ماذا هي حاجة بعنا وانا كم هسيه قف بركو دوريين وواحد خير لسه يبركو يين وحبة قبني أيها اللغرة أنت بفعل بس مين مركو دوري يشتري وسبيين يسوي فعل سبيين ويحمل مغرب تعو عن لتش إذا يجوا عن الدورين اللي بعنا ده هذا يقتين إن يدك وحوق قبطان هذا يصير أبغى كرتين يجوا وحبك عن لما دورني هو حفلة يا هدي لدورتنا إنه يكسي بدنيانه سيدا الله شيء عد كنا تين دكتور شغل لعجين عد كلا سيا وامي بويا سيدا شيء حسن حفاظ شيء أنا قرطي هو عندي بدن باكش تار كانوا مد بدن باكل ولا شيء بياكلون ما لا إلهين الحنانة ما إلهين هدي لقطين حنانة الله سمايو oo ay umushii ilmihii ba ka badbaadaan inta la sii carriyad umushii ku dhimay jitay dhexda ama bulxaar lagu sii wado ama badbaad lagu sii wado waa wixii lagu mahadiyaa weeyaan waana noo guddoon haddaan nahay dadweynaha salay ciddii garatayna tisaalaa ku qayb ilaahay ka taasi ilaahayna ha u fududeeyo ha u soo dhiibo waxay ku dhisayaan iyo doorashada ay rabaan labadaba دوام هاتف أحمد داشمي هذه أدبر بهذا العلية وعن هذا نقصد وين دونا أبي عبد الله محمود جبريل. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وتبارك والسلام يا مركا حاجة إلهي مالو مهدقيا مركا حاجة وحنو مهدقيا وفتك بصوب وقضي إلي عقال يحل بانا ولا إلوي يارو مهدقيا مركا لبعضو حراعيني وحقبت كالي وحنو قبتين ويكون مهدسي بيكون مهدسي وحا يدو قبتين هذا بروه حبال يارو تسيرينا مركا حاجة ضدك كسوق قايب قلي دوبك إياها وين والدو والسلام يا
halkaa waxaa leeyahay inuu ilaahay idinla qabto aad doonaysaan inuu ilaahay idinla qabto wixii odana abaalgud qof kastaaba waa inuu ku rido assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وكم هاتي هذا عبد الله وحن يمكن هو يردونا إسماعيل يوسف حكي سلي بكل باي كده معنا xildhibaanada hore u soo shaqeeyey cabdiraxmaan xamuud yaasiin axmed carab muuse bulaale oo ka mida deegaanka waxay dhagax dhigayaan magaalada la yidhaha salif hooyo iyaga oo horena u soo shaqeeyey imakana u shaqaynaya dadkooda oo aad u soo halgamay imakana aad u halgamaya waxaanu ilaahay u baryaynaa hawsha ay wadaan in ilaahay ku gargaaro ka ay doonayaan waxaanu ilaahay u baryaynaa in ilaahay u fuliyo inta iyada la socotana inaan wanaag mooyo xumaan ilaahayna soo kala marin hawsha bismillahi raxmaan raxiim aanu ilaahay dartii u wadno ee aanu ilaahay ugu ceelsan in ilaahay noo fuliyo ilaahay uu naga aqbalo naga ajiyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu واي يمكن واحد لما كان موسين دونا علي أو حسن إسماعيل يوسف حاج موسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشنا الله السلام يا نمانتي أول يا آخر مو السلام قدم كلام حبيبي الحمد لله مالك العالم وشكر لله إلى هذه للهادي وأن إذن محمدنا حل بالله يو السنة يو الصلاة يو عيدي قلبي شيء وقت قال ما تيسبه يو حروح قبل يا نحديقة هالكلام ما تكبرون هلا سوتشو شيء وانو أفضل سوتش ويدي وحي أنو قبل كريني أنا لو بن نو يا الله وش أتحرى وفلوين إن شاء الله لما أنت بالله قريب waxaa soo dhaweynaya qormadan sida cusub ee maanta la isugu yimi si fiican baan u soo dhaweynaynaa waxqabadka xildhibaanada iyo wixii ay siyaadinayaan intaba waan soo dhaweynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu واي واحد يردونا علي واحد السلام عليكم ورحمة الله وعن سلام دوننا أمة إلهي كاني وعانا مدرسيلة حلدمانada maanta iyo waqtiga noo yimi salaata marka xigta ilaahay baa loo mahadlay ilaahayga weyna waaxida waxaan leeyahay halkan ayada waxa weeyaan adeedu saacada imika gudan wax la yidhaahdo bay gashaa geedkaa wax gaari karaa ma jiraan qofka halkaa noo keenay maanta caafimaadkan nagu dhagax dhigay aad iyo aad baan hadda reersan ilaahay ugu mahadnaqay waxa weeye weliba soo dhaweyn iyo qalbi furan baanu aad iyo aad ugu soo dhaweynay wixii xiga nagala kulmaa ee haddii alla ka dhigo nagu waajibana si wanaagsan oo maaquul oo caafimaad leh oo qalbiga iyo niyad iyo nuurkaba ka feeyo baanu ugu soo dhaweynay yaa uguna soo dhammayn ilaahayna waa ugu mahadnaqay aad baan ugu mahadsiinay waqtigaa maanta halkaan nugu sidaa ay noogu dhagax dhigeen weliba noogu dhisaan waanu nagaga qabyoobin iyo nugula sii su-aalayna annagoo warwar ka qabno dhibaatada maanta naga haystaalka يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waayahay waxaan dadka ka yaro codsanaynaa dhammaan dadweynaha reer Salad iyo Kulub waqtiga cadceedda ay taagan yihiin awgeed inaan loo yaro kala tagin intaa ay u sabraan intaa inaan u kala tagin waayahay imikana waxaynu u yeedhi doonaa musharaxiintii hawshan maanta dhagax dhigga ay noo fulinaysay waxaan ku horreysiin doonaa musharaxa u tartamaya golaha deegaanka degmada Berbera أحمد عرب موسى بلالة فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. intaas ka bacdi awalan ilaahay waa mahadle suukan keenay maanta waxa weeyaan tuulada Salay inagoo nabad qabna iyo idinkoo nabad qaba inkastoo waxa weeyaan adaa abaaran iyo yara kulul jiraan
haddana alxamdulilah baan ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu abaarahaana inaga soo jebiyo in ilaahay abaaraha inaga soo jebiyo xanuunada meerayana ilaahay naga dulqaado waxa Soomaaliland dhan baynu arkaynaa intaas waxa weeyaan waa kelmadii hore iyo ducadii talabaad aan soo noqdo xafladeenan maanta oo ay tahay bishii afraad kowdeedii 2021 waxaynu u soconnaa oo muhiimadda u weyn tahay baahida weyna loo qabaa in deegaanka degmada Saley oo xukunta baaxad aad u ballaaran in loo dhagax dhigo rug caafimaad waayo rugta caafimaad loo dhagax dhigaya muhiimadeeda leedo waxa weyn arrimihii bulshada ayay kow ka tahay muhiimadda ay leedahay waxa weyn hooyada iyo dhallaanka ay number 1 u tahay oo waxa weyn hooyada halka ku foolata ugu yaraan waxa ugu dhow xagna boodala ugu dhow xagana bulxaar ba ugu dhow xagana waxa dabarqas ba ugu dhow inta ay sii socoto ama la sii wado ayay waxa weyn xaalad kale la kulmi kartaa maadaama ay muhiimadda leedahay waxaanu garanay haddaanu nahay musharaxiintii oo kaashanaya annagoo kali ma fulin karba saacadda loo dhigma ka kale lagu socdo waa ogtii musharaxiinta deegaankaanu kaashanayna gacmihiinaan u baahannahay waxa weeyaan hawshaas sidii aynu fulin lahayn ayaynu iskaga kaashanaynaa fariinta labaad ee maamulkiidii ka sida aad iyo aad bay hortiidii soo salaamayeen gudoomiyihii gobolka gudoomiyihii degmada waxa weeyaan suduuyi caafimaadka dhammaantood horta salaam baladi ka sida hawl shaqay u soo bixi waayeen waxay markii hore ballan qaadeen inay yimaadaan xarunta dhagax dhigaan laakiin hawlihii qaranka waxa weeyaan day muhiimadooda leh ay ku maqan yihiin horta nagama maqnaa gudoomiyihii degmadu isaga laftiisu waxa weeyaan hawl halkan sheekh ayaa isaguna hawl ugu baxay laakiin inaga ka wakiila hawshaasi waxa weeyaan qaranka oo dhan baa ka wada socda xukuumadda ka socota xisbiyada ka socda xisbiga kulmiyan ka tirsanahay baa isaguna kow ka ah intaaba waan ugu mahadnaqayaa laakiin ta muhiimka ah waxa weeyaan inaan deegaan ahaan fahanno inaan hawshan inagu leenahay xukuumadda waxaynu la kaashanaynaa waxa weyn iyada rabnaa inay rangarayso dawadeedii iyo shaqaalihii iyo wixii laakiin dhisitaanka inaan inagu iska kaashano oo dii degmada Saley waxa weeyaan dee iyaduna ay contribution ka keento ee way ka sii wanaagsanto xarun qurux badan oo inta ka sii weyn aynu dhisanaynaa marka idinka laftiinu deena hawsha nagala qayb qaadataan u soo diyaar garooba hawshuna sida maanta imkaan u dhagax dhigayno ayay u bilaabaysaa qalabka horaantiisii waa la keenay aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa xaruntaana aynu wada ilaashano xaruntaas waa dan guud aynu wada ilaashano waayo taas haddaynu maanta ilaalino waxa weyn maamulkeeda si fiican u ilaalino waxaa laga yaabaa MCH weyn oo degmooyinka kale inagu hararsanayno caafimaadkooda looga keeno kuwa hore loo afgaran waayo ayaan dhaxalsiin laakiin taasi hadday naga xumaato dee waa la hasahay marka boom jira aynu ahaano aynu dadaalno xaruntaana nin kastooba wixii aad ku caawin karto waxa ugu yar inaad 2 midho jaajuura saarto inaad waxa weeyaan neef soo iibiso tirada waxaan ugu deeqay hooyada iyo dhallaanka hawshaas waxa weeyaan waa qof mid kasta way taabanaysaa deegaanka kamida qofkii socotada bay taabanaysaa waxa weeyaan waa muhiimadeeda leh aynu dadaalno annaguna mid baan ka codsanna maadaama masaafada inta laga diiday soo soconnay oo aan xaqeega ka dadaalayno maalintii cod bixinta maxay iska sugaynaa diyaar ma u nahay oo soddonka May waxbay nagama xigaan 2 bilood bay laga xigaa maalintaana waxaan idinka codsanaynaa ina sanduuqa aku ridaan oo waliba deegaan ballaaran weeyaane ad dadka soo dhaweysaan maalintaas oo kale abaarana way jiraan ad ogaataan cid kasta halka joogto waana mahadsanti ilaahay naga soo jeeyo abaarta aad buu mahadsan yahay raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bulshadan reer Saley rag iyo dumarba leh madasha bacadka maanta taagan waxaan idinka mahadnaqaynaa ilaahay idinka siiyay hawsha aynu maanta u taaganayna waa hawl khayri ah annagu naguma koobna rag iyo hablaba waa kuwa jooga ka qayb qaatay sibirkii horaantiisu waa ka timi waxa la inaga doonayaa inaynu ka midha dhalino oo inaga qabiyoobin oo aynu samayntii jaajuurka bilowno oo aanu waliba
ku xil saarnay reer Saleeyo liri jaajuurka sibirka horta markaanu keeno jaajuurka sabeyntiisa idinkaa nooga wakiila waxa laaliyo wixii kale ay u baahantayna annaga naga taqaanaan oo keenina hadii Ilaahay yiraahdo sidaas markaa ay noo balana waa ogeydeen baahida koobaad bay ahayd waxa weeyaan markaa qofka salay jooga ama agagaarkeeda jooga xabadkiina u baahda walaxaar baa ugu dhow ama boodaale markaa waa muhiimadeedu waa taa weeye waxa weeyaan inaynu gamcays qabsano aynu wax wada qabsano oo dadku sida wax u wada taransan lahaa ama wax u qabsan lahaa aynu isbarno oo ka wastaadkii qaybtiisa oo ka qabliga qaybtiisa oo ka maxaan idhaahdaa nijaarkii qaybtiisa oo ka haddii eeba xukmayo kuuligii dhinaciisa qabto oo sibirka inoogu bilowdaan haddii Ilaahay yidhaahdo sibirka inoogu bilowdaan jaajuurka sibirka wixii ka dhimanna waanu soo diri degdeg haddii Ilaahay yidhaahdo idinkuna waa deeqdeen oo halkaa waa idinkaa noo taaganeen codkiina waa idinkii ku deeqeen waa guddoon weeye yaa laydinka waaye haddii Ilaahay yidhaahdo aad baanu idiin salaamaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gabadhii waxaanu dhagax dhigi doonaa inaan dhagax dhigno dhismihii xanaanada ama goobtii caafimaadka ee hooyadii dhallaanka ماي تشاچور کا سو يالا لبا تشاچور دخليسا تشاچور کا سو dhigto soo dhex dhig meesha sila dhex dhig may tuldhigum waa dhigto labada god u buuxi ma sha Allah kabada halkan dhiga daba dul saaru daashin halkan dana kalana حاجة صوية كده دوك كاميرا بسم الله كاميرا صوية بسم الله gacan khayr qabta waxaanu ilaahay ugu mahadnaqaynaa maanta oo bishii afraad kowdeedii 2020 inaanu dhagax dhigayno xaruntii rugtii caafimaadka ee degmada Saley meel lagu baraaro lagu bashbasho har qabow oo mulaha u fududaysa oo waxa weyn hooyo waaxidaan ku dhib mudan ayaan ilaahay ka baryaynaa xaruntaasina inay qabsoonto waxa weyn ilaahay baan la kaashanaynaa in ilaahay noo rumeeyo waxa weyn halkaas ay bogcad ummadda wax tarta ilaahay nooga aamin dhah amiin ya rabbil alamin ilaahay ha soo fududeeyo dhismaheeda ilaahay ha soo fududeeyo dhismaheeda ilaahay ha soo fududeeyo dhismaheeda idinkuna sidaa ku ducaysta